ayaad nagala socotaan waxaad naga daawanaysaan xarunta gaadiidka booliska waxaa gabagaba ah munaasabadii lagu xuseeyey sanad guuradii 53aad ee ka soo wareegatay markii ay xorriyadda qaateen gobollada koonfureed ee dalka islamarkaana ay xoroobeen gobollada koonfureed iyo kuwa waqooyi qaar ka mida dadkii ka soo qayb galay ayaa hadda ila taagan abwaan owliyo oo si aad u wada taqaanaan ayaa garabkayga bidix taagan abwaane damaashaadka caawalkan dhacsida u aragtaa inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun mamacaawe waxaan kala garan lahay inaan 8 sano jiro iyo inaan 10 sano jiro iyo inaan 60 jirahay waxaan isleeyahay xornimadii ayaa joogtaa waxay ii muuqataa istisraacii fifaalihii wax badan oo ilaahay ka baryayay ما شاء الله محمد عبد الله waxaan moodaa inaan mar waxaan isleeyahay inuu 8 sano jirtaa marna waxaan isleeyahay inuu waxaa jirtaa 60 sano marna waxaan leeyahay Soomaalida meel kasta ay joogto kullu caam wa antum bikhair waa ciid wanaagsan waa kowdi luuliyo taan ku wada xorownee kufrigii ku saarnee ku midoobay shacabkii waa kowdi luuliyo kolkii uu cadaabuhu ku hamiyey dhulkeenii waddanigu ku kacaye iyadoo la kala harin geesigu kaliya laab ku jahaaday gaalkee kumanaan nafweydee ka hortagay cadaawihii waa maalin farxad iyo nashaad ah waa maalin aan la koobi karin waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ififaalaha waxa weeye calaamatulmadar fii saxaab maanta oo kale weli lama arag waxaan u hambalyaynahayaa qabaqaabiyaasha xafladdan waxaan u hambalyaynahayaa telefishinnadeeda Soomaaliyeed midka qaranka Universal TV Home Cable iyo dhammaantood waxaan u hambalyaynahayaa milyaniska waxaan rabaa fursaddan dahabiyada inay la qaadato xaajiyadeeda aad u jeclahay Canab Ibrahim Cali iyo carruurtayda ciid wanaagsan salaamullaahi calaykum waayahay qaar ka mida daawadayaasha ayaa weli taagan xafladii gabagaba ay maraysaa sawaxanka iyo buuqa gadaal ka yeerayo waxaa maraya cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga oo sidaad arkaysaan salaanta bixinayay iyo kooxda bambaayida luul oo Universal ka socota idinku wareejinaya daawadayaal waad mahadsan tahay maxamed cabdulaahi caawa sida aad arkaysaan waxaa halkan ka socda dabaaldeg weyn oo loogu dabaaldegayo munaasabadda kowda luuli oo ah maalin qiimo badan oo shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ay si weyn ugu dabaaldegayaan haddaba waxaa munaasabadda qayb ka qaadanaya cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxaana runtii aan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed inay difaacaan xornimadaasi oo ay ka shaqeeyaan ciidamada qalabka sida cadowga ummadda Soomaaliyeed ay meel ugu soo wada jeestaan oo ay amniga ka wada shaqeeyaan oo maanta ay intay gacmaha isqabsadaan oo qabiilka ay iloobaan ay dadkooda ay gaaraan oo ah dadka iyo maslaxadooda ummadda Soomaaliyeed inaanu gaarno waa inaynu gaarnaa meesha ay gaareen wadamada annagana la midka ah ummadaha annagana la midka ah meesha ay gaareen waa inaanu gaarnaa waxaanu ku gaari karnaa midnimo walaaltinimo iyo Soomaalinimo qabiilku ma gaari karno waa mahadsan waxaan jecelnahay sanadkan sanadkiisa kale inay ummadda Soomaaliyeed ay gaarto meel ay xorriyaddeeda taam ah oo maaragtay qarannimadeeda sharafteeda karaamadeeda buuxda ay gaarto amni ruuxa ay gaarto waana ku dadaalayna haddii ala yidhaahdo waa tahay daawadayaal qaranka Soomaaliyeed ayaa nala socdaan xildhibaan aamino ayaa ka mid ah marnada Soomaaliyeed ee munaasabadda dabaaldegada caalamka xildhibaan oo
inay ku gaarto qaabka ay aad ku sugan tahay qaab ka wanaagsan oo ay ilaashato midnimadeeda guud ahaan xaqle ayaa leenahay dadka Soomaaliyeed